حما كوسو تشيديريا قروح كوماها xilku waa meerto maalinba nin baa jooga ragga soo abaabulay iyo cidda dhalinyarada xalay ilaa maanta abaabuleysayna waa la garanayaa bulshaduna way ogtahay dhalinyar ku xidhan xaq darro si sharci darraan magaalada dhexdeeda looga qabtay mas'uulka dhawaan loo soo magacaabay gobolka Awdal ama hoggaanka amniga ugu sareeya marar badan gobolka Awdal waxa mansabka ku maamuli jiray dadaan deegaanka reer Awdal ahayn maalintii la soo magacaabay quluubta shacbi fara badani oo reer Awdal waxay filayeen oo rajaynayeen horumarinta gobolka Awdal inuu qayb lixaad la ka qaato mas'uulka u dhashay ilaahayna u calfay mas'uulkiisa ee loo soo magacaabo oo mas'uuliyadda qaado ما يدعي أنت عسرنتي نصيب درو وحقات فول حموة إن ميد محاود بيبا اللي كان السيسيدو ما أنت ترى حمدي وقويني يدي دعرين إنما يرير وأن عقلك صاحب وحي إنما يرير وأن متلاد رسمي ومدود كويسا إنما يرير ودadkii runtii magaalada joogay aad u qosleenoo meel magaalada ka galaan bal garan way intuu la soo istaajiyay tilmaanna la siinayo qoraalna la siinayo dhigtana wax loogu sheegay shaqada inuu ku foogeen yahay runtii mas'uulkaasi waa wax aad u niyad jabiyay shacbiga gobolka Awdal xuma ku soo jeedinaya qurux kuumaaha xilku waa meerto maalinba nin baa jooga waxaan maanta kan isku imanay annagoo ah dhalinyarada gobolka Awdal gaar ahaan kuwa taabacsan aragtida iyo mabaadiida xisbiga wadani inaanu halkan maanta ka beenino dhalinyaro maanta uu soo abaabulay xisbiga kulmiye oo ka hadlaysay caasimadda gobolka Boorama kuwaasoo ka hadlayay arrimo masiiriyo aad moodo inayna daacad ka ahayn kuwaasoo badnaa beerlaxawsi iyo muddo kororsi xaaraana oo xisbiga kulmiye soo abaabulay run ahaantii aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu kula qabno haddaanu nahay guud ahaan dhalinyarada reer Awdal waxaanu kula qabno oonu kula soconno oonu aaminsannahay maaha waxaad moodaa dacaayadaha iyo aragtiyaha raqiiska xisbiga kulmiye soo abaabulayo inay ka mid yihiin amaba uu doonayo inuu iska horkeeno shacbiga reer Awdal iyo xisbiga wadani oo inuu ognahay abaalka siyaasadeed isku leeyihiin waxaanu marag iyo markhaati ka nahay in xisbiga wadani doorashadii shirgudoonka golaha wakiilada uu reer Awdal ku dhisay gudoomiye ku-xigeenka labaad halka kulmiye iyo hoggaankiisa Musabbix ay reer Awdal u quuri waayeen inay ugu yaraan ka tartamaan haba waayaane ugu yaraan inay ka tartamaan isbahaysigii kulmiye iyo xildhibaanada cid hoggaaminayeen khiyaaliga iyo mabaadiida ku dhisan marna habaabinta maaha wax reer Awdal iyo xisbiga wadani isku seegayaan waana ka xunnahay ragga soo abaabulay iyo cidda dhalinyarada xalay ilaa maanta abaabuleysayna waa la garanayaa bulshaduna way ogtahay haddaanu taa kaga gudubno talabaad xisbiga kulmiye reer Awdal waxay kala taagan yihiin laba daraf oo aad u kala fog waxaynu ognahay in xisbiga kulmiye manaasiibtii dawladnimada si toos ah uga qadiyay shacbiga reer Awdal una quuri waayo wixii xuquuq siyaasi ay lahaayeen ee dastuurku damaanad qaaday waxaynu ogeyn in maalin dhaweyta ay fadhiisteen guddida fulinta xisbiga kulmiye oo gudoomiye ku-xigeenka reer Awdal gudoomiye ku-xigeenka afraad ba ka soo galaan xisbiga kulmiye laakiin waxa nasiib daraa in gudoomiye ku-xigeenkii saddexaad oo reer Awdal hadiiba cadaalad iyo xaq la eegayo ay xaq u lahaayeen inay ku soo ruqaansadaan oo ay noqdaan gudoomiye ku-xigeenka saddexaad in Salebaan Cali Kooro dadkiisa iyo deegaankiisa oo maqan yahay oo isaga iyo dhowr nin oo kale Hargeysa ka joogaan cashuur bixiyana aanan ahayn in gudoomiye ku-xigeenkii saddexaad xisbiga kulmiye si bareer oo cad ugu dhisay waxaynu ogeeno marag iyo markhaati ka ahayn in jagada gudoomiyaha golaha wakiiladu markii ay soo banaanaatay
xisbiga wadani qorsheeyay iyo xildhibaanadiisii inay gobolka awdal siiyaan maadaama gobolkii sool ee saami qaybsiga ku lahaa kursigu uu ka baxay meesha taa cagsigeeda xisbiga kulmiye oo ka duulaya diidmada qayaxanayna gobolka awdal aan waxba u ogolayn waxa uu ku soo dhisay hantidii dadweynaha iyo cashuurtii dadka laga ururinayay xildhibaan faraatoon oo dadkiisiiyo deegaankiisiiba maqan yahay taasina waxay caddaynaysaa way markhaati ka tahay reer awdal iyo kulmiyaha kay kala joogaan qodob ka soo yeedhay xildhibaanada gobolka awdal khaasatan xildhibaanada ku matala golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan qaraar ay soo saareen warmurtiyeed ay soo saareen runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ka dhalinyar ahaan ka xisbi ahaan iyo ka gobol ahaanba xildhibaanadu waxa ay soo saareen waa waxay nagu matalaan waxaa la yidhahdaa laa yakuunu alxadiidu ila alxadiid xagga soomaalida ay tidhaha qaniya kaa goysa war ummaddan waxay dastuur u lahayd ee xaq ay u lahayd ee dastuurka uu siiyey qodobkan haddaan intaa kaga tago qodobka labaad waxaa jirta dhalinyar ku xidhan xaqdarro si sharci darraana magaalada dhexdeeda looga qaqabtay dhalinyartaasi faldembiyeed ay leeyihiin iyo wax dembiya oo ay galeen midna ma jirto iyadoo taa la og yahay oo tii hore ee diiftii hore ay ka muuqato dhulkoogii markaa maxay heday abaagadhe loo gacan geliyey ayaa maantana waxa ay socotaa inaa markaa maxay haydee dhinac walba ummaddii reer awdal ay ka cunan tahay oo ay noqotay hashii lama midig loo helay markaa waxa weeye war xukuumaddan gobolkeedu dhacay ee caqli ahaan iyo moraal ahaanba midna aanan u joogin war ummadda si gaar ah u eegto reer awdal wax kooto iyo markaa maxay ahaydee si hoose wax markaa maxay ahaydee loo leeyahay bannaanka soo istaago kootaan igu xidhay ka dhe ummadda maxaad markaa maxay ahaydee si hoose aad markaa maxay ahaydee hunuhunuud aad u badan waa cimraan xuseen aadan wararka telefishanka MM TV Boorama